إن سida ogtiin ba maalmihii u dambeysay xaaladda dalku oo ku sugan yahay siyaasadeed ayaan rabaa inaan laba kalmo ka dhahdo oo ku aadan xaaladaha dalka uu ku sugan yahay sida amniga doorashooyinka sharciga dhaqaalaha iyo faragelin ku socota dalka sidaas darteed sida ogtihiin ba maalmihii ugu dambeysay waxa hawada isku shareeray khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha khilaafkaas oo aan runtii inaba aan sharciga aan waafaqsanayn oo siyaabo kala duwan dadku ay uga hadleen marka runtii markii aan u kala qaadnay arrimahaas dhowr qodob waxaan rabaa inaan ku soo koobo sida ogtiin ba wadanku wuxuu galay marxalad doorasho oo xilligan ogtiin in xukuumaddii ka horeysay markii ay gaarsii weysay dalka doorasho qof iyo cod ah waxay baarlamaanku kala laabteen xukuumaddii hore kalsoonida sidaas darteed ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble markii la magacaabay waxaa muddadaas kooban loo doortay inuu dalka gaarsiiyo doorasho maadaama waqtigu uu gaabnaa sidaas darteed khilaafka hadda maanta soo laabtay oo dalka dib u hareeyey asal ahaan waxa uu salka ku hayo waxaan u aragnaa annaga inay tahay dana gaar ah oo runtii arrintaasna uu ka leeyahay ra'iisul wasaaruhu ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble injineer roble waxaa looga fadhiyay dalkan inuu gaarsiiyo doorasho muddada kooban maadaama uu ku guuldaraystay doorashadii inuu dalka gaarsiiyo haddana uu khilaaf kala dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo arrintaas marka waxaan rabnaa inaan qodob sharci ahaanshteeda inaan ka hadlo horta waxaan la isku hayaa ma sharciya mise sharci maahan arrintaas dad badan waa ka hadleen sharci ahaanshaheeda iyo sharci ahaanta runtii haddii aan arrintaas aan kor istaagno khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha u dhexeeya ma ahan khilaaf dastuuri ah ma ahan waa khilaaf dana gaar ah ku qotama oo dhinaca ra'iisul wasaaraha ka socda waxaana sabab u ah ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku guuldaraystay doorashadii inuu dalka gaarsiiyo amnigii inuu xasiloonidii mataqaana dalka inuu hore u sii wado faragelintii uu ku sameeyey hay-adaha nabad sugidda iyo wasiirka amniga ra'iisul wasaaruhu wuxuu ula jeeday arrintaas in waddanku uu qalqal iyo amni darro u galo waxaana xaqiiq u ah xilka qaadistii wasiirka amniga oo iyo taliyihii hay-adda nabad sugidda oo amarnaba aan sharciga waafaqsanayn arrintaas waxaan rabaa marka ummadda Soomaaliyeed aan ugu baaqo inay xaaladda dhabta ah ee jirta ay ogaadaan waxaana sabab u ah arrintaas dana kala gedisan oo ay laga leeyahay arrimaha doorashooyinka oo qolo kasta ay rabto inay si gaar ah wax u boobto maantana uma baahna waddankeenu qalalaase iyo dib u dhac dambana uma baahna runtii waxaan dhihi lahay ra'iisul wasaaraha inuu ku soo laabto waddadii sharciga ahayd inuu ku soo laabto ayaan ugu baaqaynaa arrintii loo dirsaday arrin ahayna uusan faraha la gelin ra'iisul wasaaraha muddada kooban waxaa loogu xil saaray inuu dalkan doorasho gaarsiiyo ma ahayn inuu xilligan uu u soo laabto kala qaybinta hay-adaha dowladda iyo waxaan isaga qusayn inuu galo waxaan rabaa inaan arrintaas si gaar u taabto sidaa ogtihiin ba wasiirkii amniga xasan xundubey isagoo dalka ka maqan ayaa xilka qaadis lagu sameeyey sababtuna waxay ahayd ra'iisul wasaaruhu xasan xundubey wuxuu u diray shaqo ku saabsan dhaqaale waxaa jirta xoghayaha joogtada ah wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirka amniga inuu ra'iisul wasaaruhu u diray waddanka imaaraadka carabta halkaas oo wada hadal uu ka socday arrintaasoo marka gunteeduna ay ahayd in dowladdu imaaraadku ay mataqaana dhaqaale xanibnaa ay dowladda ku wareejiso arrintaas markii ra'iisul wasaaruhu uu ka war helay inay mataqaana sidii lagu talagalay ay ku dhammaanayso oo dhaqaalihii wasiirka amniga gacanta u geli rabo asagoo safar ku jira ayuu xilka ka qaaday lacagtiina waxaa soo qaaday xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda arrintaas marka waxay ku tuursanaysaa halkaas in ay dana gaara ku jiraan oo ku saabsan dhaqaale kala aruursi iyo axbaalkii xukun marooqsi iyo ku xadgudub ku tagrifal awoodeed oo mar kasta uu samaynayo ra'iisul wasaaruhu sidaas darteed waxaan rabnaa in shacabka Soomaaliyeed ugu baaqo maanta Soomaaliya ma ahan uma baahna dagaal uma baahna qabiil loo kala qaybiyo wax maanta qabiil u kala qaybsanna ma jirto annaga ku raaci mayno ra'iisul wasaaraha qabiil waa ognahay inuusan qabiil
maanta u doodaynin sidaas si la mid ah markii sharciga laga hadlaayo qof kasta wuxuu og yahay sharciga iyo sharci darrada waa la keenay maanta caruurta elementary-ga ah oo dugsiga hoose dhigtaa way yaqaanaan dastuurka iyo sharciga wuxuu uu qabo sharciga meel uga qorantaa lama arko madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo ah haddana astaantii qaranka ah maanta in la yiraahdo warbaahintii qaranka kama hadli kartid sharci darro heerka ay gaartay intaas ayaa qof kasta ugu filan inuu arko maanta inuu ra'iisul wasaaruhu yiraahdo shalay madaxweyne asaga soo magacaabay kama hadla karo TV qaranka waxaas dhan oo awood ah oo ku tumanayo ra'iisul wasaaruhu wuxuu ula jeedaa maadaama waddankan uu doorashada xilliga lagu talagalay uu gaarsiin waayay ayuu rabaa inuu doorashada waddankan dib u dhacdo isagoo u sababaysanaya in mataqaana uu wax ka wadi waayo madaxweynihii runtii arrintaasna madaxweynaha ma laga xisaabtamayo xukuumadda ayaa laga maxamed xuseen rable ayaa eedahaas dhan qaadanaysa wixii waddankan ka halaaba sidaas darteed Soomaaliya maantay meesha ay joogto haddii aan si degdeg ah wax looga qabanin wuxuu ra'iisul wasaaruhu ku wadaa in dalkan uu ku laabto xilligii transition-ka ku meel gaar inuu u laabto dalkan oo lagu soo rogo in Soomaaliya inaysan ismaamuli karin in caalamkii la tuso sidaas darteedna waddanku meel gaar lagu celiyo waana nasiib darro meel aan ka nimid waqti dheer ka hor inaan maanta dib ugu laabano marka waxaan leenahay ra'iisul wasaare ku soo laabo wadada saxda ah khilaafka kala dhaxay madaxweynaha oo sharci darrada aad ku dhaqantay ka soo laabo arrinta laga rabay iyo waxa laga sugayna in adiga aad hirgelisay ayaa laga rabaa kusoo dhawaada Som TV Somali fadlan taageeradiina waxay noo tahay dhiirigelin subscribe saar kanaalka share garay like saar videoga mahadsanid